munaasabad ballaaran oo lagu xusaayay sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegta aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa lagu qabtay saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay gobolka Sanaag degmadiisa Cergaabo waxaana xuska munaasabadani goob joog ah barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo maayir ku xigeenka degmada Cergaabo taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag iyo taliyaha ku xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada qaranka ee saldhigga saddexaad ee gobolka Sanaag ka howlgala ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidanka qaranka ee saldhigga saddexaad 2019 oo ay ku beegan tahay munaasabadii aasaaska ciidanka qaranka ee 25aad dulmi ruuxu ka gala aniga u diyaaro waxa aan direeskiyo darajada isrooniyo dusha qoriga ugu raray cadow dabad ka yimi iyo inaan daalin ka jiro ciidamada dableyde dubcas loo yaqaaniyo dalab iyo calankeen ha jiro isigii hawaare midabkiisa caanka cadaanka iyo cagaarka iyo casaanka bay isugu jira caadilow quweeyo ka ilaali ciirka iyo cadceed iyo habaaska iyo culaad iyo ciidanka qaranku waa halbowlaha wadanka xil baa idin saaran dalka difaaciisa nabadgelyada baa xil idinka saaran yahay runtii mar labaad waxa weeye wuxuu hayaa laba shaqo waxa weeye waa ta uu ku magacaaban yahay ee ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaalinta cadowga dibadda shaqada labaad uu hayaana waxa weeye nabadgelyada gudaha oo maxay ahayd meel kasta oo shaqo gudaheena ka timaado oo ka howlgalo habeen iyo maalin uu heegan u yahay dhanka kalena waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Sanaag iyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolka Sanaag iyo taliyaha ku xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Sanaag iyagoo dhammaanba hambalyo u diray ciidanka qaranka Soomaaliland sanad guuradooda 25aad iyo maanta farqiga ciidanka qaranka u dhaxeeya iyo tadawarka iyo horumarka uu sameeyeen adeeg idin shafaafayn maayo waxa idin muuqda weey aad ugu hambalyeynaya horumarka ballaaran madaxda qaranka taliyaha ciidanka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiishiisa soo badbadashay oo ka soo shaqeysay waxa leeyahay hambalyo ku casumay uga soo qayb galnay inaanu hambalyeeyno oo xafladan qiimaha badan ee sharafta leh aanu ay qabteen ciidanka qaranku aanu ugu hambalyeeyno waxaanu leenahay waxa qabateen ilaahay baa xaqiisa ka helaysan waayo in lagu seexdo waa seexan baad tihiin waxa qabateen waliba waa og yahay hadal badan halkan uma baahan oo asaaskii 25aad maanta aynu ka joogno waanu halkan maanta isku nimid ayaynu hambalyeynaa waxa leenahay hambalyo gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka qaranka ee saldhigga saddexaad ee gobolka Sanaag Faysal Cabdi Bootan iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyagoo dhammaanba hambalyo u diray ciidanka qaranka ee ku sugan guud ahaanba Soomaaliland dhammaantood iyo ciidanka qarankuba waxay hayaan shaqadii qaranku u yigmaday taasoo ah difaaca dalka iyo ilaalinta nabadgelyada gudaha wixii bileysku uga baahdaan inay gacan siiyaan labadaba hawl wanaagsan bay qabteen waxqabadka ciidanka qaranka ee ballaaran taliyaha ciidanka qaranka ayaa ka warrami doona oo maanta munaasabadii ballaadheed ku haya Hargeysa lagu qabanayo ee 25 guuradii ciidanka qaranka laakiin ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag ku sugan ama qaybta saddexaad ha ahaato ama guutooyinka ku xoojisan ee taliska guud iyo qaybta 13aad ha ahaadaan cid waliba waajibaadkii qarankan u igmaday ayay si buuxda u haysaa waana ku mahadsantihiin waxana xasanaad iyo duco iyo khayrba kaga helaysaan dalkiina iyo dadkiina sida wanaagsan u dadaasheen cid waliba waxay qabatay shaqadii qaranku u igmaday waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag meel kasta ay joogaan waa hambalyo waa maalin farxad leh waa xaflad aad u qaali ah oo qiimo badan oo la soo agaasimay waana ciidan sax run ahaantii ku ah shaqada ay qabtaan ay tahay shaqo adag gobolka Sanaag soo waa gobol aad u dhaxan badan oo u qabow ciidankaas waxay joogaan xuduudaha meel kasta way taagan yihiin way shaqeeyaan shaqadiina aad gudateen ee waajibaadka qaranka aad gudateen aad baan idinku hambalyeynaya ciidanka Adnaan Cabdirashiid Cali telefishinka caalamiga ee Horyeel 24 TV wararka gobolka Sanaag Cergaabo